magaalada Caabudwaaq oo la filayo in maalinta Arbacada uu imaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa laga dareemayaa qabanqaabo iyo waliba soo dhaweyn wacan ayadoona dadka ay dhalinyarada kala duwan ee magaaladani ay wadaan olole magaalada lagu qurxinayo waxaad arkaysaa meelaha qaarkood dhalinyaro rinjiyeynaysa darbida iyo waliba guryaha meel walbana lagu xaqday calanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayadoona ay dhalinyaradaas yihiin kuwa iskood isku xilqaamay dhanka kale tameel walba waxa ka lulanaya calanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayadoona aan cid u dirsan jirin taasna ay keentay wadaniyad dheeraad ah iyo waliba deeqa qaaday bulshada deegaankani dadka deegaanka ama dadka ololaha wada ee dhalinyarada ah oo dareenkooda uu la qaybsaday telefishinka caalamiga ah Somali Cable ayaa waxa ay noo sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin imaanshaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo waliba qabanqaabada ay wadaan imaad Bashir aad baan ku salaamnaa maasan tahay sida balan uga qayb qaadanayso soo dhaweynta madaxweynaha farmaajo saado muuqato saado aragtaa waxa ka socda cariga soo dhaweyn aan caadayn oo ay dhigayaan bulshada Caabudwaaq gaar ahaan xaafadda waxa ka socda olole aad u xoogan oo lagu soo dhaweynayo madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxaan rajaynaynaa wacdari lagu soo dhaweeyo shacabka inaga hore ugu soo dhaweeyo mid la mid ah inaan ku soo dhaweeyno anaguna si fiican bay u socotaa hawshii soo dhaweyntii madaxweynaha ما شاء الله ولكن على مدى iyo dadka siday u soo dhaweynayaan diyaar garow baa lagu jiraa marka waxaan sugnaba waa madaxweynaha waxyaalaha laga qabtay maxaa ka sheegay waxa ka mid ah nadaafada iyo amniga meel walba la sugay ma sha Allah dadkii oo dhan yani si walba oo ciidankii oo meel walba amaanka u sugi lahaayeen iyo maxay ahayd kaleeto sida nadaafada loogu dadaalayo magaaladii wada caalam ah wax laga sheegay Caabudwaaq waxa la yidhi dib u soo noqdo wadankiina ku soo noqdo deegaankiina ku soo noqda si aad yani horumarka hadda ka jira Caabudwaaq uu si balaaran Somali Cable aad iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed oo Caabudwaaq ku soo booqday Caabudwaaq aad iyo aad baan u jeclahay markasta magaalada inay imaado waa jeclahay dad fiican oo walaalaha oo soo dhaweynta ku fiican baa degan insha Allah hadda waxaan sugnaan kulay madaxweynaha waaye magaalada meel kasta calaamad laga taagay dadka yar iyo weyn way shaqeynayaan dadka deegaanka Caabudwaaq waxaan ku baaqi lahaa waxaad ka soo jeedaan deegaan aad iyo aad u qurux badan aad iyo aad u fiican in deegaanka laga qayb qaato nabadgelyadiisa iyo maaragtay dadka walaalaha isku soo dhaweyn lahaa inaad maaragtay ka qayb qaadataan iyada kale ummadda ku nool inay maaragtay ka shaqeeyaan nabadda oo hadda imaadka madaxweynaha oo istaagsantaas dana Caabudwaaq diyaar baa u nahay madaxweynaha iyo waftiga la soconaan soo dhaweyno waxaana madaxweynaha waftigiisana ka rabnaa inay wax nagala qabtaan saddex arrimood oo ka mid yihiin midda koobaad oo ah in ammaanka laba horumarinta sida waxbarashada caafimaadka wadooyinka jaamacadda aeroboortka iyo waxyaalaha qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada midda saddexaad aan ka rabnaa madaxweynaha waxay tahay on diyaarna waxa nagala qabto dhibaatada dowladda Itoobiya ku haysa shacabka Soomaaliya laga soo bilaabo in waqooyi ilaa Gado dil bay ku haysaa dadka waa loo diiday wadooyinka in mataqaana gaadiidka inay raacaan dhacba lagu hayaa kufsa lagu hayaa arintaas waa arin aad u muhiim ah iyaduna in madaxweynaha nagala qabtaa rabaa soo dhawaad leena madaxweynaha ku soo dhawaad Caabudwaaq dalkaaga iyo dadkaaga iyo ummadaada waa mahadsantiin Ahmed Duraan ku soo dhawaad Somali Cable كله Somali Cable وأنا أمهد علينا برنامج كان يسكح القناة سودوينت مدحوينها كيف قادنا يسوق سيدا عنقو بعد أركي سيدا على مضى قناة يسكت بريد كمجالات يقوم قابلة عن كورنا وحكم مقطعين ديار جرو وحوجن وكثير دقمة عوضة ولقوا سودوين مدحوينها جمهورية الفدرالية كسوماليا مركب حلنا مدحوين سودو Caabudwaaq يزت سوية وفرحسن وهريها بين أنساحن وتاجن علنك شرفته من الصومالية إنها كيف قاتنا madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmahan ugu soo beegan uu soo gaaro magaalada Caabudwaaq ayadoona dadku si aad u diyaar garoobay deegaankana looga diyaariyay Mahad Bashir Cismaan Somali Cable TV Caabudwaaq